السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان رير iyo reer wajiha west gaar ahaan garsiga qofta waxaan rabaa inaan tacsiyo u diro sabir iimaan Allah naga siiyo dadkii maanta geeriyoodeen oo la dilay sida foosh xun videoga marka arkay runtii waan la xanuunsaday arrin hablaheena hooyooyinkeena ooynayaan aad iyo aad ay daqasay arrin foosh xun weeyaan وانا كفرنا هاي هدان مدحدينا نحن وين الرجال وجيه قومتنا هاي security committee لفايس شان كاهاي أذن أنا كسحني معها نكرر هذا صبري ما لنا إنسيو ودياش دمر كذا لا يردني والبوين تأسيه وحرب هنا إيش هو أذن كاس إن أنا كسحني دولة عن تحكينه قلنا security عن لحم لينه وحي وحس يكون عن dadkii waxa sameeyeen in la soo qabto oo sharciga la mariyo taas balada ay kaga qaadeen hada madaxdiina nahay wallahi xoolo hadda naftinkeeda indaas waxa ka maqan xoolaha ka maqan bari hore la qaaday dadkii daaqay waqtiga hadda kale dadkii way isdhex socdaan laakiin waxa fiican dadka day isdhex socdaan ama maxaa la yiraahdaa dadka idinka kale daaq u doontaan darashada hadii inta darisnimadii in احترامه لكن وحيانا صونا نقولها مر واحد في جدي لو صاري جدي أرمها بودا إنه كشقية هي لكن سلا أقولنا هاي وش هذا عندك كسب مد ما أنت وكلته متأدي هذا فالحواي أدي يقول صوت بوي كنتي هو يوينكا ويناين أدي هذا على شنو حنون تسويان مركا داك بحب الاسكوت دي هاي سلا أو أركا يحاول مر والبلق هذا dadkan oo dhanka kala jiraan booranta dhanka kala jiraan runtii dib badan bay dhanka wajar ay ku hayaan ama ay dad badan bay wax u geysteen dib badanna way sameeyeen dadkan waxa fiican dawlad way jirtaa dawladda door jaray dhaxgashay marka waxa fiican anaga naftinkana leaderska arrintan inaan ka hortagno oo xal aan u helno xal aan laga soo noqonaynin maxaa yeelay runtii markaste dhiig inuu daato maamoyin asay ay la saaro ilma agooma laga dhigo rajo laga dhigo agooma laga dhigo honestly runtii waa arrin markasta soo noqon karin marka arrinkan xaal si degdeg in lagu helo dadka waxa ka horeysa waxa sameeyay sida ugu dhaqso badan in la soo xiro IG-ga u tagaya DIG-ga u tagaya qolada county security team kana waa la hadlay already maanta arrintan arrin dambaan ka saaxanayna malaho hooyooyinkeena dambe inay ooynaynin insha Allah